marka horta abtiyaalow horta waad iga raali ahanaysin midda u koowaad midda labaad aniga wadankii waa igu weynaaday dhaqaalihiina wuu iska yaraaday xooggiina xoog bilcaan buu noqday xoog bilcaan soo ma garanaysin aniga wadankii oo weyn oo Garissa County waa 6 sub county bay noqotay inaan meel kasta aan istaago aan maro hadda waxaan u maleeyaa Balambala waxa ii dhiman Jarajila iyo Daanyeer Ward Jarjara iyo Daanyeer Ward labada ward bis ay dhiman laakiin wardyaashii kale ku diiwaan soo mare Faafi ayagana laba ward ba iga dhiman Lagdheera waan gaare Dadaab way ii dhiman tahay Masalaani hal mar baan gaare Gaarisna nuskeeda way ii dhimantay waayo waxaa noqday hal qof oo 6 sub county inuu maro la rabo dhaqaalihiina wuu iska yar waxaan ka codsanayaa waliba majority leader markuu soo istaago dhaqaalihii xafiiskayga soo maro inuu sheego uu dadka iga qanciyo marka laakiin waxaan dareensanahay aniga inkastoo aqoonni aan imaanin wax inaan ka qabtay waxaan ka qabtay xafiiskayga waxa ugu weyn oo soo maro waa fiiska qoonne bes ma dhahay aniga waxaan u qabanay sub county Balambala sub county markii la dhaho 200 oo arur yaan ka bixiyo fees oo secondary schools aniga jaamacad ma bixin kari laakiin waxaan bixin karo waa secondary schools secondary-na waxaan ka bixiyaa 200 oo ciyaal kullee inta meesha fadhido hadda ilmahooda hadday 10 ku jirin 20 way ku jirtaa marka ina saa ogaatiin aan rabaa tan kale aan rabo inaan idin sheego waxa kale oo aan qaban karo oo yar oo xafiiskayga soo maro waa group-yaashaas oo gabdhaha haweenka loogu talagalay ee youth-ka group-yaashaas waan ogahay wali ma inii soo gaarin laakiin waa inii soo socdaa waa inii maqanahay ree abtiyaalow inaad ii dulqaadatiin baan rabaa dulqaadasho soo ma jirto ii dulqaata maanta hadda majority leader markuu invitation card-ki uu ii dhiibay waxaan ku dhahay contribution-kayga waan ku dhiiwayaa laakiin ree abtiga wali ma aadina ma iga dhaaftid anoo keligay socdaan rabaa inaan aade waana dareensanaa inaan inii imaanin laakiin wadanka igu weynaaday halkan qoonne waan imaanayaa waan baryayaa hadduu Ilaahay ina gaarsiiyo waxyaalo badan oo hadda inta iniga shisheegi karin waayo hadda xalfadan waxaa loogu talagalay in lacag la aruuriyo Soomaan waxyaalo badan oo inta aan ka sheegi karin baan isku xul waramayna insha Allah hadduu Ilaahay ina gaarsiiyo ma iga qaadateen tan kale majority leaders darad waan tagay xafiiskiisaan tagay waxaan ku dhahay maadaama qoonne aad ii wado waxaan rabaa mar labaad inaan qoonne kugu celiyo anoo ku wado oo fundraising aad ii samayso oo haweenka aad iigu samayso fundraising-kaasna waxaa loo sameynayaa haweenkii Jarjara Ward qoonne bis maaha haweenkii Jarjara Ward baa loo sameyni liidagana waan keeni mar labaad halkan baan ku soo celini hadda wixii meesh ka soo baxana inagu ba iska lahaanaysin marka ballantaasna wuu iga qaada qeyr Ilaahay hasiyo mar labaad halkan ku soo noqonayna haduu Ilaahay yiraahdo tan kale aan rabo inaan ka hadlo waa census ka horta waan ila sheegay inaan ku sii dheeraado ma rabi dadkaada markuu badan yahay unbay dhaqaalahaadana u badnaani soo ma ogtiin wali waqaasatan Balambala dadkeeda zaid bay u liitaan dadkeeda way fara badan yihiin laakiin waxa u malaysaa sidii MCA-ga uu sheegay lama kabja gareynin hadduu Ilaahay yiraahdo aniga waxaan rabaa 8 bariga uu socdo census-ka xisaabaadka ay socoto inaan halkan Balambala aan imaado oo 8 bari aan joogo hadduu Ilaahay ina gaarsiiyo marka inigana waxaa iniga rabaa oo iniga barihayaa inaad isku soo baxdin waayo dhaqaalahaada wuxuu ku badnaani dadkaadoo bato oo saama ogtiin MByaasha had iyo dadkii MCyaasha ku diintoo istaageen way ka hadleen hadalka haddii lagu celceliyo macnuu qabaa kolley waxa census-ka loogu celcelinayo macnaheeda waxaa way dadkaada hadday bataan dhaqaalahaadana wuu ku badan marka inaa isku soo baxdiin baan rabaa anigana anaa qoos u soo gali doonaa insha Allah hadduu Ilaahay ina gaarsiiyo marka waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo wiilka ayna sharafta badan annaga aadan bare waan dooranay soo maahan kuuraa lagu doortay ma ogi meesha had uu jooga isa isgaarsiiyay
halka had uu joogana Soomaali bas uma joogo Kenya oo dhan buu u joogaa muslimiin oo dhan buu u joogaa annaga muslim haddaan nahay ninka aan talada ka qaadano ninka tusaalada aan ka qaadano ninka markaan qalad aan galno noo yeero oo na waaniyo waayo annaga meesha waan ku cusubanahay waxa la arkaa qalad fara badan inaan galno marka ninka aan ku tiirsanahay ninkan waay inagana u soo duceeya Ilaahay buu na gaarsiyo meesha had uu joogo meel ka weyn inuu Ilaahay si gaarsiyo u soo duceeya annagana ducada nagu dawadara marka waad mahadsantiin